السلام عليكم خيارتنا لا سعوتا meel kasta oo aad dunida ka joogtaan Mareykanka oo xalay joojiyay duqeymihii uu ka waday gudaha wadanka Iran kadib markii la ogaaday kaydadkii gantaalaha iyo waliba duqeymaha ay ka sameynayeen in ay hoos u dhaceen kulan xasaasi ah ayaa ka dhacay aqalka cad oo uu ka soo qayb galay taliyaha ciidamada wadaaga ah ee Mareykanka iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi waxana la istusay in Mareykanka uusan hadda sii wada karin duqeymaha ninkii Trump waxa la leeyahay waxa uu ka fakarayaa xaaladda xiga karaysa arrintan mar haddii la leeyahay dagaaladii iyo duqeymihii u socday Mareykanka ay ka wadeen Iran waxay saameyn ku yeesheen qaybo kamid ah kaydadkii hubka ee bariga dhexe Mareykanka u yaalay haddii aan qodobada kale aan falanqeyn doono khiyaaray aan si eega waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu qorsheynayaa inuu socdaal ku gaaro dalka Mareykanka isla markaana uu kulan la yeesho madaxweynaha wadankaasi Donald Trump ujeedada waxay tahay Israel in ay ku qanciso Trump dagaalka Iran in la sii balaariyo iyadoo xiisada gobolku ay gabi dhacleynayso Trump ayaa digniin u diray hogaamiyaasha ugu sareeya wadamada Ruushka iyo dalka Shiinaha waxana uu leeyahay ma hubayn kartaan Iran waxana dhinaca kale la yaaban yahay baaliri awoodda tiknoolajiyada dagaalka ay la soo baxayso dawladda Tehran taas oo muujinaysa in dhinacyadu ay wali Mareykanku ay darsayaan awoodda dawladda Iran ee u muuqanaysa in aan waxba laga qaban karin la taliyaha sare ee dhanka ciidamada ee hogaamiyaha wadanka Iran waxa uu leeyahay cadawga in soo weeraray dharbaaxa adag ayaan la helnay waxa ku dhacana waa laga sheekayn doonaa madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian waxa uu leeyahay dawladda Trump oo Mareykanka waxay gashay dambiyo dagaal oo ka dhana wadanka Iran waa in lagu xisaabtamaa waxa dhacay Iran markan galka ayay seefta kala baxaysaa markaad eegto qaabka luuqadaha iyo lahjada dagaalka ay u dhigayaan wargeyska caanka ah ee The Guardian qaybta ka soo baxda dalka Mareykanka iyana waxa ay tilmaamayaan saaka in shacabka Mareykanku ay aad uga walaacsan yihiin in Trump uu qarinayo jabka ciidamadiisa ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolkaasi bariga dhexe inta ilaa iyo xalay ma jirin duqeymo Mareykanka uu ka fuliyo gudaha wadanka Iran sababtuna waxay tahay markii la ogaaday kaydadkii hubka iyo waliba nidaamyada difaaca hawada gantaalihi ay ku howlgalayeen Mareykanku in ay hoos u dhaceen tan oo laga muujinayo walaaca ugu weyn ee hadda dawladda Washington haya iyadoo lala yaaban yahay awoodda tiknoolajiyada iyo waliba dagaalada dawladda Iran ay qaybta ka tahay ee ciidamada Mareykanka saldhigyadiisu ay ku beegsanayaan xaqiiqadii ayaa banaanka u soo baxaysa marka la eego sida ay qorayaan qaar kamid ah wargeysyada waaweyn ee wadanka Mareykanka nidaamyada difaaca ee Patriot-ka la yiraahdo iyo waliba Arrow iyo kuwan kale ee Mareykanku adeegsanayaan gantaali ay isticmaalayeen ayaa hoos u dhacay taasina waxay keentay in si degdeg ah dagaalka Mareykanka uu si iska u qaato inuu joojiyo oo sabab ay uga dhigayo in mustaqbalka walaac weyn laga muujinayo marnaashiyaha kaydka inay saameyn ku yeelato awoodda dagaal ee Mareykanka iyo saldhigyadiisa ku yaala gobolka bariga dhexe wargeyska caanka ah ee The New York Times ayaa qoray in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu go'aansaday in xilligan uu hakiyo qorshaha lagu ballaarin lahaa weerarada militariga ah ee ka dhanka wadanka Iran sida warbixintu ay sheegtay go'aanka ayaa yimid kadib markii walaac laga muujiyay in dagaal ballaaran oo si weyn u dhimi karo kaydka gantaalaha difaaca ee Patriot iyo awoodda nidaamyada difaaca cirka Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe waa sheegasho dadban oo Mareykanka uu ku qiranayo in dagaalkan uu ka soo gaaray jab weyn oo xoogan iyadoo horey qaar kamid ah wargeysyada iyo telefishinada waaweyn ee Mareykanku ay sheegeen dagaalkii bilowday 28 bishii Febraayo gantaalihii difaaca Mareykanka iyo waliba kuwa istiraatiijiga ahaa boqolkiiba 50 ay hoos u dhaceen taasoo lagu amray in shirkadaha waaweyn ay howlgalaan laakiin dib in looga soo kabto waxay qaadanaysaa baa la yiri 3 ilaa 5 sanadood kaydadkaasi madhay in la soo buuxiyo
hase haatee hadda waxay mar kale Maraykanku qiranayaan duqeymihii kala duwanaa ay sameynayeen in ay saameyn ku yeelatay sida wargeyska The Times uu qorayo. haddii aan eego saraakiishu waxay sheegayaan in xaaladda noocaanihi ay culays ku saari karayso awoodda difaaca Maraykanka in nidaamyada ka hortaga gantaalaha ee gobolka ay markan ku dadaalaan sida xal loogu heli karo. sida uu qoray wargeyska The New York Times, arrimaha la xiriira qorsheynta militariga iyo saadka ayaa door muhiim ah ka qaadanaysa baa layidhi go'aanka dib loogu dhigay ballaarinta weerarada, iyadoo Maraykanka uu doonayo in uu ilaashado diyaargarowgiisa difaaca haddii ay dhacaan isbedelo kale oo amni oo gobolka bariga dhexe ka yimaada. warbixintan waxa uu wargeyskan shaacinayaa xilli qaar ka mid ah wargeysyada kala duwan iyo telefishinada caanka ah ee Maraykanku ay xog kale tabinayaan. telefishinka caanka ah ee la yiraahdo CNN ee dalka Maraykanka ka soo baxa isla markaana u janjeera dhinaca dimuqraadiga waxa uu leeyahay taliyaha ciidamada wadajirka ah ee Maraykanka iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi JD Vance iyo xubno kala duwan ayaa ka qayb galay shir xasaasi ah oo ka dhacay aqalka cad, iyadoo looga arrinsanayay saameynta gantaalaha hoos u dhacaya ee Maraykanku ay ku yeelanayaan dagaalka Iran oo xalay ilaa iyo saaka Maraykanka ku qasabtay in uusan wax duqeyna fulin. sarkaal Maraykan ayaa u sheegay telefishinka CNN in Maraykanka howlgal military ee Maraykanka uu ka fuliyo baa layidhi Iran ay xilligan hakad ku jiraan, iyadoo maamulka madaxweyne Trump uu wali qiimeynayo toddobaadyada xiga waxa uu sameyn doona uu qaadi karayo. sarkaalkan waxa uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka JD Vance iyo taliyaha ciidamada wadajirka ah ee Maraykanka General Dan Kane ayaa kulan ka dhacay aqalka cad maalintii Jimcada ku muujiyay walaaca ku saabsan heerka kaydka gantaalaha iyo rasaasta Maraykanka ee hoos u sii dhacaysa gobolka bariga dhexe iyo guud ahaanba dalka Maraykanka. madaxweynaha dalka Maraykanka Trump ayaa si joogto ah u sheegay in uu door bidayo xal diblomaasiyadeed, balse uu wali miiska saaran yahay buu yidhi xulashooyin haddii Iran ay sii wado waxa maamulka Maraykanka uu ku tilmaamay falal halis ku ah marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz iyo xulafadiisa Washington. mas-uuliyiintu waxay sheegeen baa layidhi in maamulka Trump uu aaminsan yahay in cunaqabataynta iyo weerarada lagu qaaday bartilmaameedyada militariga muddo 13 maalin ah ay kordhiyeen cadaadiska Iran saaran, isla markaana ay Tehran wanaagsan tahay in wada hadal ay gasho, waxana ay isku dareen baa layidhi haddii aan heshiis la gaarin Maraykanka uu haysto doorashooyin kale. ilaa galabnimadii Jimcaha maamulka Trump ayaa wali falanqeynayay nooca tallaabo kasta oo military oo dheeraada oo laga qaadi karayo wadanka Iran. dowladaha qaliijka ayaa wada hadallo waxay la yeesheen saraakiisha Maraykanka, waxay ku booriyeen in laga fogaado sii hurinta colaadda iyagoo ku baaqay isxakameyn degdega. isla markaana dowladaha qaliijka ayaa qirtay baa layidhi in Maraykanka uu leeyahay awood military oo gaar ah uu adeegsan karayo haddii uu go'aansado in uu sii ballaariyo dagaalka. waa Maraykanka hadda oranaya kaydkeennii dagaalka ayaa madhay, sidaas darteed duqeymihii ugu dambeeyay waynu hakinay. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Trump uu si qarsoodi ah ugu amray ergadiisa wadaxaajoodka in ay sii wadaan xiriirka diblomaasiyadda, xilli uu si fagaaro ah u sheegay inay ka fiirsanayaan weerar ballaaran oo ka dhana Iran. sida laga soo xigtay saraakiishii la hadlay telefishinkan, tiro yar oo ka tirsan kooxda ugu dhow Trump iyo Pentagonka ayaa rumaysan in qorshahaasi lagu sii xoojinayo weeraro ay gaarsiin karaan natiijooyin uu madaxweynuhu doonayay, sida ay hadalka u dhigayaan. isla markaana Trump hadda waxaa ka muuqanaysa in dowladdiisu ay hadda tabardarri weyn soo wajahayso xagga kaydadka nidaamka difaaca ah, iyadoo warshadaha wax soo saarka gantaalahan istiraatiijiga ah ee weerarada lagu qaadayana ay tilmaamayaan inay wajahayaan culays aad u daran. isla wararka istiraatiijiyadda dagaalka ee gobolka bariga dhexe ayaynu ku guda jirnaa khiyaarta ay nala socotay. madaxweynaha wadanka Maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu degnayn aad u adag xilli uu marayo wadankiisa marxalad adag oo xasaasi ah oo ka dhana dagaalka Iran. waxa uu degnayn u diray
dowladaha Ruushka iyo sidoo kale dowladda kale ee Shiinaha. waxa uu leeyahay ma aqbali karayno in aad hubaysaan wadankaasi Iran xilli awoodda dagaal ee tiknoolajiyadda Tehran ay Washington la yaaban tahay. telefishinka Al Jazeera qaybtiisa afka Carabiga ayaa waxa ay qoraysaa dood ballaaran ayaa ka dhex taagan hay'adaha sirdoonka Mareykanka oo ku saabsan halka Iran ay ka heshay tiknoolajiyadda casriga ah ay u adeegsanayso howlgalladeeda militariga ugu dambeeyay. su'aasha ugu weyn ayaa ah in tiknoolajiyadaasi ay ka heshay Ruushka iyo Shiinaha mise iyada ayaa gudaha wadankeeda ku hormarisay. waa su'aasha ugu weyn ee hadda daboolka laga qaaday ee hay'adaha sirdoonka ee dowladda Mareykanku ay si la yaab leh u falanqeynayaan doodahan maadaama awoodda tiknoolajiyadeed ee dowladda Iran ay noqotay mid ka sii baxaysa xadkii caadiga ahaa oo Mareykanka uu qiyaasan karayay. qabiir arrimaha militariga ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulwaxid ayaa u sheegay telefishinka in doodan ay ka dhalatay saxnaanta weerarada Iran ay ku qaadayso bartilmaameedyada Mareykanka ee aan la seereynin ee ku yaala gobolka Khaliijka iyo awoodda gantaalaha ay ku beegsanayso bartilmaameedyada istiraatiijiga ah. sida uu qabiirkan sheegay Iran ayaa la rumaysan yahay in ay si gaar ah u beegsatay waxa loo yaqaano xarumaha isku xirka shabakadaha ee network nodes loo yaqaano waxaana kuwaasoo isku xira baa la yidhi dayax gacmeedyada sirdoonka macmalka ee AI-ga gantaalada nidaamyada difaaca ee Patriot iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ay isticmaalayeen. sistamyadaasi isku xiran oo dhan dowladda Iran waxay u muuqanaysaa in ay si weyn u weerarayso intii dagaaladu ay soconayeen. waxa uu xusay baa la yidhi Mareykanka inuu si weyn ugu tiirsan yahay nidaamyada isku xiran ee howlgallada militariga isla markaana uu sidoo kale adeegsado dagaaladii Ukraine loo adeegsanayay. Maxamed Cabdulwaxid qabiirkan waxa uu sheegay in awoodda lagu bartilmaameedsada xarumahaasi ay muujin karto in arinta ay leedahay tiknoolajiyad horumarsan waa Iran oo dhinaca dagaalka elektarooniga ah isla markaana ay awood u leedahay in ay farageliso ama ay ogaato baa la yidhi raadadka elektarooniga ah ee cadowgeeda uu muujinayo. arrintan ayaa sii xoojisay shakiga ka jira in qaar ka mid ah hay'adaha sirdoonka Mareykanka ee ku saabsan in Iran laga yaabo inay hesho taageero tiknoolajiyadeed oo ka timid dalalka Ruushka iyo Shiinaha. si kastaba warbixintu waxay soo bandhigtay falanqeyn iyo doodo ay khubaradu bixiyaan. markaasi kadib waxaa soo baxaya madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump in uu ku dhawaaqay baa la yidhi in madaxda wadamada Ruushka iyo Shiinaha uu jeediyo digniin ku aadan sababaha keenaya in ay hubeeyaan wadankaasi Iran waxana uu sheegay in ay ka fogaadaan intii ay goor tahay inay hub gacanta u galiyaan halisa wadankaasi Iran. Mareykanka saaka waxaad moodaa inay si weyn ugu forarto xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe. waaxda dagaalka ee Pentagon-ka loo yaqaano ayaa wajahaysa dhaleecayn kala duwan oo uga imaanaya ra'yul caamka, aqoon-yahanka, warbaahinta iyo khubarada daraaseeya dagaalkan hadda soconaya. waxaana ay ku eedeynayaan in ay qarinayaan khasaaraha dowladda Washington ka soo gaaray weeraradii ugu dambeeyay ee dowladda Iran ay qaadeen. wargeyska caanka ah ee The Guardian qaybtiisa wararka ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay maqaal xasaasiya ku qortay arrintan. wargeyskana waxa uu daabacay warbixin sheegaysa in waaxda dagaalka Mareykanka ee Pentagon-ka lagu eedeeyay inay si ula kac ah u xadidayso macluumaadka ku saabsan khilaafaadka naf ee ciidamada ama khasaaraha nafeed ee ciidamada Mareykanka ka soo gaaray dagaalada ka dhacaya gudaha wadankaasi Iran. warbixin uu qoray qoraaga lagu magacaabo David Smith ayaa ku salaysan waraysi lala yeeshay mas'uuliyiin hore oo Mareykana khubaro amniga qaranka ah iyo waliba ururo u dooda xorriyadda saxaafadda. dhinaca kale Pentagon-ka ayaa si cad u beeniyay eedeymahaasi iyagoo sheegay in uusan jirin wax dadaal ah oo lagu qarinayo baa la yidhi xogta ugu dambeysay. qoraalka ayaa lagu bilaabay hadallo uu jeediyey Leon Panetta oo hore u soo noqday xogayaha difaaca Mareykanka iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka dhexe ee CIA-da. Panetta ayaa ku tilmaamay sida Pentagon-ku uu u maareeyay
xogta khasaaraha ciidamada hab laga xishoodo isagoo sheegay in uu aaminsan yahay in si ula kaca looga qarinayo shacabka xogta dhabta ah ee khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. xogayihii hore ee difaaca Mareykanka Panetta ayaa sheegay in dowladdu ay waajib ku tahay in shacabka ay u sheegto qiimaha dhabta ah ee dagaalka ay dalka u gelisay. waxaana uu xusay in xilliyadii dagaalka ee Ciraaq iyo Afghanistan wasiiradii difaaca ay si joogto ah u qaban jireen shirar jaraa'id oo ay ku faahfaahinayaan xaaladda dagaalka iyo waliba khasaaraha soo gaaray ciidamadooda. dhinaca kale Pentagon-ka ayaa diiday eedeymahaasi iyagoo ku adkaystay in bulshadu ay warbaahinta la wadaagto macluumaadka waafaqsan shuruudaha amniga aan ilaada wasaaraddu la wadaagto macluumaadka saxda ah iyo habraacyada dowladda isla markaana aysan jirin siyaasad lagu qiimeynayo khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. warbixintu waxay dib u soo nooleysay dooda ka taagan gudaha Mareykanka ee ku saleysan heerka hufnaanta dowladda iyo xaqa shacabka ay u leeyihiin in ay helaan xogaha ugu dambeeyay ee dagaalkaasi aadka u quseeya ee taabanaya. dhinaca kale markaynu eegno ilaa iyo xalay duqeymo kama aysan dhicin wadanka Iran waxaana mas'uuliyiinta Mareykanku ay bixinayaan xogo kala duwan. sarkaal kale ayaa la hadlay telefishinka Al Jazeera la yiraahdo ee dalka Qatar gaar ahaan magaalada Dooxa ka dhisan waxaana uu soo bandhigay xogaha ku saabsan sababaha hakinta weerarkaasi iyadoo ay cad tahay Mareykanka in inta yar ee hubka ay u hartay uu doonayo in uu ilaashado. wariyaha Al Jazeera ayaa sheegay in mas'uul ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Pentagon-ka Mareykanka ay u xaqiijiyeen in la hakiyo howlgalladii militariga ee Mareykanka ee ka dhanka ahaa Iran. inkasta uusan bixin faahfaahin kale oo dheeraada oo ku saabsan go'aankaasi. sida warbixintu ay sheegtay xogaha hordhaca ah ayaa muujinaya in madaxweyne Donald Trump uu qaatay go'aankan intii lagu guda jiray kulan jimcihii lala yeeshay saraakiisha sare ee dowladda. kulankaasi ayaa lagu falanqeeyay suurtagalnimada ballaarinta howlgalka militariga ee ka dhanka ah Iran iyadoo ujeedadu ahayd in cadaadiska lagu sii horiyo dalka Iran uu yahay mid aan hadda si degdega loo waajihi karayn sida ay dooda u dhigeen dhinacyadaasi. madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian waxa uu ku tilmaamay dambiyo weyn oo dagaal Mareykanka inuu ku galay gudaha wadankiisa loona baahan yahay isla xisaabtan dhameystiran oo si degdega ay muhiim u tahay in tallaabo loo qaado. madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in weerarada Mareykanka uu ku qaaday kaabayaasha rayidka ah ee Iran ay yihiin tusaale cad oo muujinaya dambiyo dagaal. isagoo ka hadlaya kulan uu la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda wadooyinka iyo waliba horumarinta maalgashiga ayuu Pezeshkian waxa uu yiri weerarada Mareykanka uu ku beegsaday kaabayaasha rayidka Iran waa tusaale cad oo ka mid ah dambiyada dagaalka. madaxweynaha ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in falalkaasi loo baahan yahay in la dabagalo dariiqooyinka sharcigaana lagu qaabilo. waxaana sidoo kale loo marayaa buu yiri hay'adaha caalamiga ah ee xil saaran arrimaha sharciga iyo cadaaladda. Pezeshkian waxa uu sheegay in dowladda Iran ay doonayso in ay arrintaasi loo gudbiyo hay-adaha caalamiga ah si baaritaan sharciyadeed loogu sameeyo isla markaana dowladdaasi Iran ay u hesho magdhowga ay u baahan tahay. la taliye sare oo ka tirsan xafiiska hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka Iran Mujtaba Khamenei ayaa waxa uu tilmaamay in cadowga weerarka ku soo qaaday uu la jeedo Mareykanka ay ku dhufteen dharbaaxa aad u xoogan waayadii ugu dambeysana dagaalka uu ahaa mid dowladda Iran ay ku gacan sareysay. la taliyaha hogaamiyaha sare ee Iran General Yahya Ibrahim Safawi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida ee Iran ay ku guuleysteen in ay bedelaan xisaabtii iyo waliba qorshayaashii cadowga ee weerarka. sida ay baahisay wakaaladda wararka ee ku dhow ciidanka loo yaqaano ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda waxa uu yiri ciidamada qalabka sida ee Iran waxa ay bedeleen xisaabtii cadowga. waxa uu sidoo kale xusay in adkaysiga shacabka Iran iyo waxa uu ku tilmaamay dhidibka iska caabinta ay yihiin
door muhiim ah oo ay ka qaadan doonaan qaabaynta horumarka mustaqbalka ee gobolkaasi bariga dhexe. adkaysiga shacabka Iran iyo dhidibka iska caabinta ama unuga wax iska caabintu waxay door go'aan leh ku yeelan doonaan sida ay u ekaan doonaan booliire isbedelada mustaqbalka ee bariga dhexe. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisada militariga ee gobolku ay hadda u muuqato inay cirka isku shareerayso. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo hadda culays weyn ku wajahaya dagaalkii uu kula jiray dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. war ka soo baxay Netanyahu xafiiskiisa waxaa lagu sheegay in ujeedada kulanka ay tahay in Tel Aviv ay doonayso Trump inay dib u geliso dagaal ballaaran iyadoo la soo warinayo kaydadka hubka ee Washington ee bariga dhexe inay hadda u muuqanayaan in ay sii marnaanayaan. ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in biri uu u safri doono magaalada Washington DC ee wadankaasi Mareykanka halkaas uu kulan kula yeelan doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump si ay uga wada hadlaan buu yiri arrimo kala duwan oo gobolka iyo caalamkaba quseeya. Netanyahu ayaa sheegay in kulanka uu diiradda saari doono dhammaan faylasha muhiimka ah ee u dhaxeeya labada dhinac isagoo carabka ku adkeeyay in arrinta Iran ay ka mid noqon doonto qodobada ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono. waxaan biri u safri doonaa Washington si aan kulamo ula yeesho madaxweyne Trump waxaan kala hadli doonaa dhammaan arrimahaasi muhiimka ah waxayna yihiin buu yiri mid Iran si gaar ah u taabanaysa. kulankan ayaa imanaya xilli xiisada bariga dhexe ay weli kacsan tahay iyadoo Israel iyo waliba dhinacan kale ay u muuqanayaan inay aad isku hayaan. wayahay qiyaarta inala socota intaanan u galin su'aashan maanta inaan dib idin xasuusiyo bal qaar ka mid ah saaxiibada ku xiran channelka Cabdicasiis Barrow faafahinta ay ka bixiyeen ama aragtidooda ku aadan su'aashii xalay ee ku aadanayd Sacuudiga ma ku filnaan karaa dagaal uu kaligii la gala dowladda Iran jawaabtii ay ka bixiyeen bal in aan iraade kooxda Xuutiga jawaabtii ay ka bixiyeen bal aan dib u eego anigoo dib idin xasuusanaya su'aasha maanta ee barnaamijkan Cabdicasiis Barrowna aan su'aalahaasi bal eego dawadaha ugu horeeya waxa uu leeyahay Cabdirasaaq Cali Cabdi oo jooga Muqdisho Sacuudiga iskuma filna dagaalkan waxa uu noqon doonaa mid bariga dhexe ku fida Xuutiga ayaa ka adkaanaya Mareykanka oo la heshiiyay mid ayaa ka adkaan karta baa lidhi mahadsan saaxiib sida uu hadalkiisa u dhigay. السلام عليكم magacayga waa Cabdirashiid Xasan aqoonteyda iyo aragtideyda duqeyn dhul laguma qabsada buu yiri waxaan se xukumi doonaa meeshan la isku haysto sida ay u dhigan tahay buu aan u malaynayaa inay tahay waa Iran mahadsanid ayuu yiri Cabdirashiid adna waa mahadsan tahay. dawadaha saddexaad waxa uu leeyahay magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamuud Raage waxaan joogaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kuma filna buu yiri mana ka adkaan karto Xuutiga balse ma aha dagaalka mid sii soconayo waayo waxa soo faragelinaya buu yiri saaxiibada Sacuudiga sida Turkiga iyo Pakistan labadaasi dowladood oo marnaba aanan rabin buu yiri in Sacuudiga ay dhibaato cusub wajahdo sida uu hadalka u dhigaan badawadayaasha. saaxiibayaal adinkana aad baad u mahadsantihiin fadlan su'aasha cusub ee maanta iyo barnaamijkeenana waxa ay tahay adigoo ku bilaabaya magacaada sidaad u jeedeen dowladda Washington waxa ay digniin u jeedisay dowladaha Ruushka iyo Shiinaha sabab la xiriira awoodda hubeed iyo tiknoolajiyadeed ee dagaalka ay ku soo bandhigayso dowladda Iran. Trump waxa uu u digay madaxdaasi inay hubeeyaan wadanka Iran haddaba Ruushka iyo waliba Shiinuhu ma aqbali doonaan digniintan ka timi dowladda Mareykanka maxayna tahay sababta